habeenkii xalay magaalada Hargeysa waxaa munaasabad ballaaran lagu qabtay 17 arday oo ka qalin jibiyay jaamacadda Aadan oo dhamaystay 7 sano oo dhakhtarnimo. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay wasiiro, xildhibaano, maayarka caasimadda Hargeysa, dhakhaatiirta waaweyn ee reer Somaliland, qunsulada Somaliland fadhiya dalalka Turkiga, Taiwan, mas'uuliyiin ka socday dowladda Ingiriiska iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Aadan. Dr. Aadan Ismaaciil oo ugu horreyntii halkaasi ka hadashay waxay ka warantay marxaladii ay soo mareen ardayda munaasabaddan loo qabtay. waxay ka mid ahaayeen 7 sanadood horteed 160 arday oo secondary school ka soo baxay oo wada haystay A iyo A+. haddaanay A iyo A+ aanay haysanin medicine application-ka kama qabaneen 160 imtixaan baanu ka qaadnay. imtixaankii baanu 80 ugu sarreeyay ayaanu kala soo baxnay. sahal umay soo dhacsan. waxaanu ilaahay la hortagaynaa inay waajibaadkii lagu lahaa iyo waxbarashadii laga filayay inay muujiyeen ka soo gudbeen oo aanu islaahay 17kaas ama 16 mid baa naga maqanay inay u dhigmi doonaan 700. dhakhaatiir waa la soo saaraa laakiin waxaanu isku dayn inaanu u eegin horta lacag. waayo haddaan lacag doonayo 700 ma qaateen waxaan qaadan 160 waan wada qaadan la medicine-ka soo doontay. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Aadan iyo dhakhaatiirta waaweyn ee dalka. waxa ku hor yaala qof gacantaada ku jira oo wixii aad samayso ama wax yeelayo wixii aad samaysay ama wax u tarayo marka mas'uuliyaddaas runtii fuushan. adduunka waynu ognahay haddaad doonayso dhakhtar noqoto waa inaad at least 9 A stars ama 4 A's in A level wanaad haysato, yani top of the top. in ilaahay uu uga dhigo marka hawsha ay maatahay mas'uuliyadda ay qaadayaan naftoodana ay ku anfacaan, ummadda ay ku soo bartaan ay ku anfacaan, waalidka wax soo baran ay ku anfacaan, macallimiintoodana ay ku anfacaan. dulqaadka ogaada, dulqaadka nothing else waa dulqaadka ogaada. iminkana insha allah ay ku dadaali doonaan inay waxbarashadoodana sii wataan. dhinacooda waxaa halkaasi hadalka ku kala dambeeyey mas-uuliyiintii ka kala socday dalalka Turkiga, Taiwan iyo sidoo kale dowladda Ingiriiska, iyaguna ardaydaasi ugu hambaliyeeyay cilmigaasi ay barteen. maayarka caasimadda Hargeysa, wasiiro ka tirsan xukuumadda, wasiiro hore, xildhibaano, xubno ka socday komishanka tacliinta sare iyo mas-uuliyiin kale ayaa halkaasi ka hadlay. adni iyadoo yar ayay wax walba kaalinta koowaad gashay. waxay doonaysaa inay cimrigeeda ku sagootido dalkan oo qurux badan oo dhisan oo wanaagsan. dadaal baa idin yaal, raggiinaa yaryar, dumarkiinaa yaryar. adni xilkeedii way gudatay. qoladayada sii daba maaragtay kusii dayanaysaana waa wadwadaynaa insha allah. adna haddaynu heli lahayn 10 adna ah maanta Somaliland halkaa may taagnaateen oo different fields ku kala jira. dhakhaatiirta hadda jirta ee noo qalin jabisay laftoodu in lagu daro dardaaranka inay qaadaan mas'uuliyad ah bal inay isqaybin karaan hadday suuragal tahay oo aanay Hargeysa qura inay fadhiine ay dalka isu qaybiyaan. waxaan idiin sheegayaa adni warqad bay soo siisay iyo macallimiintu maskaxdiina wax lagu soo guray imtixaankii dadweynaha idin haray kaayagii baa idin haray. waan hubaayo waa la idin soo tababaray, waa la idinku tabcay, dayn baa la idinku leeyahay. qofku markuu guulaysto dee guusha waa la jecel yahay, cid kasta way la qaybsanaysaa. maanta hooyay aabba way dhaaftay cabdiqanow doctor waxay maraysaa Somaliland oo mid ku faanaysa. qiimeyn waa dhaweyd guddiga qaranka ee tacliinta sare uu sameeyey in jaamacadda Aadan ay ka mid tahay jaamacadaha number 1 loogu jiro. waa soo dadaasheen waana idin ducaynaynaa. adnina way idin la soo dadaashay. wax badan ayay qaranka adni ay u soo qabatay. waa qof taariikhdu in badan oo horena ay xustay inkana ay sii xusi doonto. jaamacadda adna ma aha ardadan ay soo saartay, ma aha dhakhaatiirtii ugu horreysay batch 1kii, ma aha intaasoo batch oo dadban oo jaamacado kale soo maray bay adni soo saartay. iyadoo macallimiin iyo waalid iyo adna aadanba ay garbahaydan hayaan ayaa maanta halkaas soo gaaray. waxa kaliya la dooranaya waxa weeyaan ilaaliya waxa la yahay ethics
waxaa laydinka baahan yahay inaad ilaalisaan aqoontii akhlaaqdii iyo mihnadii caafimaadka aad soo barateen. mid ka mid a ardayda ka qalin jebiyey jaamacadda Adna Aadan ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu ka warramay dareenkiisa. marka saa tahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan maamulkii iyo macallimiintii jaamacadda Adna Aadan University iyo waliba Adna Aadan Hospital. aan ugu horeysiiyo mahadcelinta maama Adna Aadan Ismaaciil oo muddadaas oo dhan garabkayga taagneyd. gunaanadkiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardayda dhammaystay jaamacadda Adna Aadan. guulad cunaabi MMTV Hargeysa.